واتاي داوديال qaybtan waxaan ku eegi doonaa isbedelka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo meelo badan ka sameeyay laakiin qayb kamid ayaan soo qaadan doonaa oo aan sidaasi dadku aysan u fahamsaneen aysan ogeyn in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaybtaas uu wax ka bedelay marka loo eego madaxweynihii ka horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo qaabka ay waxaan eegi doonaa garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho marka uu ka dhoofayo madaxweynihii hore حسن الشيخ محمود iyo marka uu ka soo degay safaf dheer ayaa loo gali jiray garoonka isla markaana waa lagu soo dhaweey jiray madaxweynaha sidii madaxweyne wadan kale ka imaanaya oo wadanka imaanaya dad badan oo mas'uuliyiin ah gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha iyo madax kale ayaa safaf dheer u gali jiray marka madaxweynuhu uu wadanka dib ugu soo laabanayo safarkaas oo laga yaabo inuu ku maqnaaba wax ka yar hal toddobaad bal muuqaalada aad arkaysaan iyo sawirada aan soo qaadanay waa safafkii dhaadheera ee xilligii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba xilligan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida uu uga soo degay garoonka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gabi ahaanba marka uu ka dhoofayo garoonka sidii wax uga dhoofaa si caadi ah oo aan mashquul badan iyo waxyaabo badan aysan gelin marka uu soo degayna sidoo kale in badan kuma sameeyo in soo dhaweyn ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo mas'uuliyiin wasiiro xildhibaano ay garoonka safafada dheer u galaan arintaasi gabi ahaanba isla markii uu xilka qabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meesha ayuu ka tiray waxaana uu inta ugu badan sameeyaa in kaligiis iyo wafdi kooban oo raacaya ay hore u sii raacaan ka bacdi markuu soo degayna wafdigiisii asaga iyo saraakiisha ciidamadu ay halkaas ku soo dhaweeyaan taasi oo la dhigi karo waa isbedel uu sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laakiin dadku iska warqab dad badan sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay ku amaaneen in haykalka madaxweynenimo ee Soomaaliya uu muujiyo marka uu shirarka la galayo madaxda kale ee maamul goboleedyada iyo mas'uuliyiinta kale halka madaxweynihii hore ee dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud marka uu shirarka maamul goboleedyada mas'uuliyiinta ee arrimaha Soomaaliya looga arinsanayo uu la galayo ay ahayeen kuwa garbasiman u fariisan jiray laakiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taas waxa uu ka bedelay kursiga madaxweynaha meel gooni ayaa la dhigaa inta kale safafkooda ayay galaan oo si caadi ah ayay geesaha uga fariistaan waxaana muuqanaysa oo la kala garanaya qofka mas'uulka ugu sareeya wadanka ah ee xilka madaxweynaha ku fadhiya iyo mas'uuliyiinta kale heerkooda sida uu kala yahay laakiin xilligii madaxweyne Xasan Sheekh qofka aan Soomaaliga ahayn ee aan garanaynin madaxweyne Xasan Sheekh shakhsiga uu yahay marka meel la wada fadhiyo kama soo saari karin qofka madaxweynaha ah taas madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isbedel ayuu ka sameeyay laakiin dad badan kama warqabaan arinta ugu dambaysa oo aan eegi doono oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka siman yihiin oo ilaa iyo hadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan waxba ka bedelin waa marka uu gaaro magaalooyinka maamul goboleedyada madaxdooda ay ku sugan yihiin halkaana lagu soo dhaweeyo hal mar ayaa laba calan oo kala nooc ah oo midka Soomaaliya iyo midka maamul goboleedka ah labada gees laga taagaa isla markaana salaanta ayay si wada jir ah u qaataan taasi madaxweynaha wali dad badan ayaa ku dhaliilaya in dhaqankaasi uusan waxba ka bedelin isla markaana ilaa iyo hadda uu yahay mid lagu dhaqmo qaar badan oo kamid ah wadamada caalamka ma ahan dhaqan laga yaqaano iyo waliba mid looga dhaqmo sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uusan waxba ka bedelin askariga idin muuqanaya ee gadaashiisa taagan xilliyadii hore jiri jirtay laakiin hadda adduunyada kale marka aad eegto ma jiro askari taagan oo ilaalinaya ee madaxweynaha gadaashiisa fadhiya marka laga reebo taagan marka laga reebo munaasabado gaar ah sida xilliyada aasaska dadka xilalka soo qabtay iyo xilliyada kale oo munaasabadaha gaarka ah oo goonida ah la sameeyay laakiin madaxda Soomaalida markaad eegtid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxdii ka horeysay dhammaan waxay ka midaysan yihiin askarigaasi